taariikhdii imaamu tirmidi magaciisa iyo nasabkiisa abu ciisa moxamed ciisa bin sawrah bin muusa bin daxaaq assulami attirmidi wuxuu dhashay casrigii dahabiga ahaa ee qarnigii 3 ee hijriyada. waa xilligii inta badan la qoray sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sidoo kale waa xilligii ay soo shaacbaxday qorista kutubta loo yaqaano kutubu suxaax, kutubtaasoo uu ku jiro kitaabka uu qoray imaamka ee la yidhaahdo jaamicu tirmidi. imaamku wuxuu dhashay dulxaja sanadku markuu ahaa 209 hijriyada, wuxuuna ku dhashay tuulo ka mid ah magaalada tirmid oo loo yaqaano bowq, kuna taalla waddanka hadda loo yaqaano usbekistan ee marka la eego juquraafi ahaan u dhow dalka afghanistan. wuxuu ku dhashay imaamku dhulkii ay ka soo jeedeen culimmadii xadiiska ku caanbaxay sida imaamulbukhaari iyo imaamu muslim. awowgiis wuxuu asal ahaan ka soo jeeday magaalada marw oo hadda ka mid ah dalka turkmanistan, balse waxay markii dambe u guureen magaalada tirmid, halkaasoo uu ku dhashay imaamku, noloshiisa bilowgeediina ku qaatay dalabkiisii cilmiga. imaamku wuxuu ahaa mid cilmiga aad u jecel, wuxuu u dhoofi jiray oo uu dhulal badan u maray sidii uu cilmiga xadiiska u baran lahaa. wuxuu ku bilaabay barashada cilmiga yaraan, wuxuu la fariistay in badan culimada si uu uga qaato cilmigooda kala duwan. wuxuu ahaa imaamku mid fahmad badan leh, xifdigiisana aad u sarreeya. imaamu tirmidi wuxuu u qalab qaatay doonista cilmiga isagoo raacaya xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu dariiqan ila aljanna. sida caadada culimmada rabbaaniyiinta u ahaydba wuxuu bilaabay inuu cilmiga raadiyo, in badanna u safro meelo fogna u tago. imaamku wuxuu ka dhagaystay cilmiga culimmadii ciraaq, khuraasaan, xijaas iyo kuwo kaleba. xifdigiisa waxaa la sheegaa inuu aad u sarreeyey. waxaa la xusaa axaadiista wuxuu durbaba ku xifdin jiray muddo yar, kadibna wuxuu dalban jiray in loo sii kordhiyo si looga dhagaysto isagoon hal xarafna qaldin. imaamku wuxuu ka mid yahay culimmada la isku halleeyo axaadiistooda, kuwaasoo lagu naanayso asxaabu sita, waxayna kala yihiin bukhaari, muslim, abu daa'uud, nisaa'i iyo ibnu maajah. culimmadiisii uu cilmiga ka qaatay waxaa ka mid ah imaamulbukhaari, qutaybah bin saciid, maxamed bin bashaar, maxamed bin almuthana, ziyaad bin yaxya alxasaani, yacquub bin ibraahim, abu saciid al ashax, naasir bin cali aljahdami, camar ibn cali alqalansi, cabbaas binu cabdilcadiim, isxaaq binu rahawiya iyo kuwo kale oo badan. ammaantii culimmada ay ka dhaheen imaamu tirmidi. ibnu athiir wuxuu yidhi imaamu tirmidi wuxuu ahaa imaam xaafid ah, lehna kutub badan, waxaana ka mid ah kutubtiisa kitaabka la yidhaahdo aljaamicu alkabiir, kaasoo ah kutubka kan ugu wanaagsan. sidoo kale ibnu cimaad alxambali wuxuu yidhi tirmidi wuxuu ahaa mid ka soo dhex muuqday asxaabtiisa, wuxuuna ahaa aayad xagga xifdiga iyo idqaanka. almiisi wuxuu yidhi isagoo ka warramaya imaamu tirmidi wuxuu ahaa imaamyada xifdiga looga dambeeyo, allahna ku anfacay muslimiinta. assamcaani wuxuu yidhi wuxuu ahaa imaamu tirmidi imaamkii casrigiisii cidna kula tartamayn. imaam alxaakim wuxuu yidhi waxaan maqlay cumar bin cali oo leh waxaa dhintay bukhaari, ugamana uusan tegin khuraasaan qof la mid ah abuu ciisa xagga cilmiga, xifdiga, xalaal miirashada iyo suhdiga. kutubtii uu alifay imaamu tirmidi waxaa ka mid ah aljaamic lisunani tirmidi. waa kitaabkii ugu horreeyey ee uu alifo imaamku uuna ku soo caanbaxay, isaga dartiisna loogu naanaysay. isagoo ka sheekaynaya imaamku kitaabkiisan wuxuu yidhi waxaan u soo bandhigay culimmadii xijaas, ciraaq iyo khuraasaanba, wayna ka raalli noqdeen. wuxuu kaloo yidhi qofkii uu gurigiisa yaalla kitaabkan waaba isagii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam la hadlayo. alcilalu suqraa, kitaabu shamaa'il almuxamadiya iyo qaar kale. geeridii imaamu tirmidi wuxuu ku dhintay imaamu tirmidi magaaladiisii bowq bishii rajab sannadkii 279 hijriyada, kadib markii nolol ka buuxda cilmi iyo camal ku sagootiyey intii ka harsaneyd noloshiisa. imaamku wuu indho beelay dhammaadkii noloshiisa. culimmada qaarna waxay sheegaan in oohintiisa badneed darteed uu la indho beelay. imaamku noloshiisa intii badneed wuxuu ku dhammaystay baridda cilmiga, dhagaysigiisa iyo qoridda kutubtan laga dhaxlay. allah ha u naxariisto imaamu tirmidi, annagana ha naga dhigo kuwii cilmigiisa qaata.
kuna anfaca dadkana sii gaarsiiya. وليس بأن يقال لقد رأست